madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland ku wareejiyay gaadhi ay u dhan yihiin qalab caafimaad kaasi oo loogu talagalay inay ka faa'iideystaan ardayda caafimaadka ka barata jaamacadaha dalka waxaana ka gudoomiyay gaadhigaasi bahda wasaaradda caafimaadka oo ugu horeeyay wasiirka caafimaadka Jamhuuriyadda Somaliland Xasan Maxamed Cali Gaafadhi haddaba waa kuwan madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland iyo wasiirka caafimaadka oo halkaasi ka hadlay iyo bahda wasaaradda caafimaadka waxaana hadaladoodii ka mid ahaa ilaahay baa mahadlab marka hore marka labaad maanta oo bishii koowaad sanadka cusub ee 2023 ay tahay 21 oo maalin sabti runtii waxaan ka joognaa aad iyo aad noogu faraxsanahay in deeq kooban oo runtii macno badan ku fadhida oo aan ka helnay hay'adda la yiraahdo Aster Foundation oo ah company weyn oo dhakhaatiir fara badan oo multi-speciality hospitals ku leh dalka Imaaraadka iyo dalka Hindiya labadaba ku leh oo runtii sharikadaha dalka daneynay sharikadaha Somaliland daneynay kamida aan isku baranay 2020kii dalka Imaaraadka runtii ka sheekaysanay si wadan u maalgelin lahayn caafimaadka Somaliland u maalgelin lahayn ka sheekaysanay ayaa waxay door bideen oo ay yiraahdeen intii aan ku horeyn lahayn inaan ka ganacsano ummadda Somaliland waxaan door bidaynaa horta inaan xagga horumarka iyo xagga maartay bini'aadantinimada in horta aan samafalka horeysiino oo dadka Somaliland waxaan la qaban karno xagga samafalka aan la qabano sidaa daraadeed waxay nagu deeqeen gaarigan xagga dabadeed taagan oo gaari ah adeega wareega caafimaadka ama afqaada wada mobile clinic lagu yiraahdo in ay nagu deeqeen qaranka Somaliland wasaaradda caafimaadka taasoo macnaheedu ay u jeedaan in isla markaa dhalinyarta jaamacadaha ku jirta wax ku bartaan isla markaana loogu adeego dadka danyarta ah ee inta badan soo gaarin iska martay muruqmaalka ah aan soo gaarin rugaha caafimaadka ama dhakhtar noqoto ama maartay xarumaha kale ciyaadada kale ha noqoto dadka soo gaarin halkooda loogu tago lagu hubiyo laguna jeegareeyo qofkii xanuunadiisa oo qabo iyaguna ay baras u noqdaan dhalinyarta jaamacadaha adeegana loogu fuliyo dadka danyarta ama muruqmaalka reer Somaliland ee soo gaari karin inta badan ama soo bahaleelin inta badan ku mashquulsan sida quraska ilmihiisa iyo biilka caruurtiisa u saan lahaa in loogu tago meelaha ay ku nool ka shaqeeyaan dibna lagu jeegareeyo si loo ogaado xaaladda qof walba xaaladdiisa ku ogaan karo caafimaad halkee marayso runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa shirkadda Aster Foundation oo nagu soo deeqday runtii wadana badan oo jaaran nahay sida Suudaan iyo wadana ka mid yihiin way hawshan ka socotaa waxayna noo ballan qaadeen in maartay hawshaasi ay balaarin doonaan insha Allah oo mar kastaba markay Allah dhibaato markay hadda dhibaato dhacdana in ay tahay emergency ka qayb qaadan doonaan horta noocan meel walba hadhow ay tagi doonaan marka waxaan mas'uuliyaddu wasaaradda mas'uuliyadda leh wasiirku sheegay mas'uuliyadda anu ka madaxweyne ku-xigeen ahaan horumarka guud iyo hawsha u soconayso iyo xiriirka inaan wasaaradda iyo qolada foundationka Aster Foundation aan xiriirno oo kolba wixii soo kordhaan la socodsiino oo maaniguna mas'uuliyadda noqonaysa insha Allah Soomaaliya waxay tahay kunka tallaabo ka bilaabmaan jaamacadaha qaranka oo dhanba ayuu gaarigan u dhaxeeyaa laakiinse wax kastoo la bilaabayo meel buu ka bilaabmaa marka maanta labadan jaamacadood waa tallaabadii koowaad weeyaan oo maadaama hal baabuur aan haysano inay iyagu ay matalaan jaamacadihii dawladda ay matalayaan laakiinse wax furan oo ilaa jaamacadaha kale wadanka beritoole kale iyo baabuur kale insha Allah iman rajaynaba way ka shaqeyn doonaan insha Allah si adeegaasi laba dhinaca marna caruurta ku baranayso marna dadkii dayarta reer Somaliland loogu adeegayo in labadiiba ay fuliso saas darteed waxaan aad iyo aad uga rajaynayaa wasaaradda caafimaadka inay xil iska saarto daryeelka gaariyaasha baabuurta la yaqaan xagga qiimaha Volvo waa baabuurta ugu qiimo badan Yurub soo saarto runtii
iyagana waxaan ka rajaynayaa maadaama mas-uuliyadda iyagu ninka wadaya ee darawalka ah oo mas-uuliyadda weyn ugu adag saaran tahay iyo si kastaba inay wasaaradduna waxaan ka rajaynayaa inay iska saari doonto maaragtay xil weyn cid kasta oo kale oo hawsha soo gashaba hadday tahay qola ay soo wakiisheen Aster Foundation iyo hadday tahay jaamacadaha in walba dhankiisa xil iska saaro oo hawsha inta hore aan wanaajino si ay wax dambe daba socday ay inoogu soo dhirtaan maanta ka barigo wixii ka nala qabeen la qabtaan aad iyo aad baad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم maanta oo sabtiya bishii koowaad ee sanadka 2023 oo bishuna tahay 21 waxaa ilaahay mahadiya inaanu maanta taaganahay xaruntii madaxtooyada jamhuuriyadda Somaliland halkaas oo aanu madaxweyne ku-xigeenka qaranka jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici wasaaradda horumarinta caafimaadka kala wareegayso gaadhi loogu talagalay in uu la shaqeeyo jaamacadaha dawladdu leedahay ardayda ama u dhow inay qalin jabiso ama soo qalin jabisay si ay uga caawiyo inay dabadaha ugu baxaan iyaga oo ku qaadanaya tababarkii caafimaadka ku qaadanaya gaarigan waxaa bixisay shirkadda Hindiga ah ee Aster Foundation oo u soo wakiilatay shirkadda Halifax iyada oo uu madaxweyne ku-xigeenku dadaal badan uu ka galay in uu gaarigaas inoo yimaado rashaynayna waxyaalo kale oo daba socda inay yimaadaan ay ka mid yihiin baabuur iyo wax kaleba maanta aanu ka gudoomaynaa madaxweyne ku-xigeenka gaariga kan dhabarkayga ka muuqda kaas oo aanu ku bilaabi doono iyadoo ay dhammaan jaamacadaha publica ah ee dawladdu ay leeyihiin qaranku aanu ku bilaabi doono labada jaamacadood ee Camuud iyo Gabiley isla markaana aanu ku bilaabi doono sidaan soo sheegay ardayda ama soo qalin jabinaysa sanadihii ugu dambeeyay ama sanadkii ugu dambeeyay ku jirta ama ardayda soo qalin jabisayba in ay ku tijaabiyaan ama tijaabooyin ku qaataan iyagoo goobaha dibadda ugu baxaya mas'uuliyadda gaariga waxa leh wasaaradda qaybinta jadwalka jaamacaduhu ay u baahan yihiin waxa u qaybin doonta wasaaradda baahiyahoodana ay u soo gudbin doonaan mustaqbalkana waxaanu rajaynaynaa in haddii chance laga heli karona in ay jaamacadaha kale laftoodu ay ka qayb galaan haddii kalena waxaanu rajaynaynaa baabuur kale inay timaado si loogu kala baydho oo loogu kala leexdo aad iyo aad baanu ugu mahadnaqaynaa dadaalka madaxweyne ku-xigeenka iyo ciddii kale ku wehelisayba ay arkaa ka gashay waxaanu aad ugu mahadnaqaynaa shirkadda Aster Foundation oo Hindiga ah waxaanu kaloo aanu u mahadnaqaynaa shirkadda kale ay sii wakiilatay ee Halifax maanta waxaan isleenahay gaarigaas wax badan buu ka qaban karaa waxbarashada caafimaadka bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka gudoomiyaha jaamacadda Gabiley madaxda kale ka socota xarunta madaxtooyada mar labaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aniga oo ku hadlaya afka jaamacadda Camuud waxaan aad ugu faraxsanahay deeqdan la nagu wareejiyay annaga iyo jaamacadda Gabiley iyo wasaaradda saddexdeeda gaarigan naga dhaxayn doona hadii la haydmo annagu Camuud ahaan baahi weyn baan u qabnay kullayba baabuurkan waxa jira ardayda wax ka barata qaybta caafimaadka week walba ama maalinta khamiista waxa la hawlgeliyaa oo la geeyaa meelaha dadka danyarta ay ku nool yihiin oo 4 goobood ah oo ku wareegsan magaalada Boorame meelahaas oo kala dari macaane Sheekh Cismaan Hayayaaba iyo Qoorgaab 350 arday oo u adeega dadka danyarta ee meelaha ku nool marka ay ardaydu iyaga dhexdooda contribution iska ururiya qoysaska ay la kulmaan ee xagga aan iska bixin karin dawada iyaga ka bixiya jaamacaddu waxbay ku kabtaa xataa waxay la kulmaan
dad aan waxba karsanin bay la kulmaan lacagtaa yar iska ururiyeen bay ku bixiyaan marka qoysaska ay gacanta ku hayaan ardaydaasi waa 1325 qoys oo ama dad ahaana waa 11500 qof weeye marka baabuurkan wuxuu gacan ka geysan doonaa u adeega dadkaas ayuu gacan weyn ka geysan doonaa maadaama dhakhaatiir waaweyn ay saaran yihiin laguna xidhiidhayo haddii ilaahay idmo dhakhaatiir isbitaallo waaweyn oo ku yaala dalka India aad ayaad u mahadsantihiin bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbi ajmaciin madaxweynaha qaranka wasiirka caafimaadka agaasimaha wasaaradda caafimaadka iyo horumarinta agaasimaha madaxtooyada gudoomiyaha jaamacadda Camuud dhammaan marti sharafta kale waxaan ugu salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh runtii maanta farxad weyn bay tahay inaan maaragtay ka soo qayb galno xafladda tan lagu wareejinayo baabuurkan qiimaha leh mobile clinic ah ka jaamacad ahaan timacade waxaanu ku ballan qaadaynaa insha Allah inaanu sida ugu fiican uga faa'iideyn doono ardayda iyo mujtamacaba meelaha ugu muhiimsan ee aanu awood saari doonana waxa weeye xarumaha agoomaha meelaha dadka danyarta ay joogaan iyo ardaydaba inay ardayduna wax ku bartaan runtii waxa weeye waa hadiyad qaaliya cid kastoo ka soo shaqaysana waanu mahad celinayaa waxaan rajaynayaa in insha Allah ay noqoto wax dhammaan qaranka oo dhan anfaca haddii la yiraahdo هلو السلام عليكم سو حبيبي آدم ماها وعليكم السلام والوانيجي waxaa kula hadlaya maamulka shirkadda haye walaal waxaad ka mid noqotay macaamiisha bisha sida ugu fiican u isticmaalay adeegayga waxaanad ku guuleystay abaalmarin dhan $600 abaalmarin waa hagaag sideen u heli karaa abaalmarinta xaguuse ku yaala xafiiskiina waa caadi walaal ma baahnin inaad noo timaadid soo nambarkaaga saad ma laha haa walaal nambarkaygan ayaan ku isticmaalaa saad saa lacagta abaalmarinta kugu soo dhacdo moobilkaaga geli nambarkan haye walaal waxaad gelisaa xidig 880 xidig 7000 xidig 600 fargees kadibna biinkaaga geli markuu kuu soo dhigo iyadoo si toos ah moobilkaaga kugu soo dhacaysa lacagtiya oo walaal sidan waa habkii lacag diridda aniga imika lacag diray waa sidee maya walaal lacagtaa sidan kugu soo dhacaysa aad ku guuleysatay haa wartug baad noo dhig moobilka ilaahay ummadda kaa qabtee shirkadda Telesom waxay ku leedahay ka feejignow cid kasta oo ku sameynaysa ballanqaadyo sida inaad ku guuleysanaysid abaalmarino lacageed iyagoo sheeganaya shirkado kaana codsanaya inaad lacag u dirtid ama ka codsanaya inaad geshid saadkaaga oo aad raacdid qaabka u lacag dirista macmiil moobilkaagu waa khasnadaada maaliyadeed ee fadlan ilaasho